soo dhawaada Soomaali Maxamed ee dhamaantii waa salaamantihiin soo dhawaada waxaan rabaa inaan halkaan idinka sheego in Soomaalidu ay baahantay in justice loo baahan yahay dadku inay cadaalad loo baahan yahay cadaalad ma loo baahan yahay meesha justice baan u baahanaa Soomaali hawiye iyo daaroodba justice bay u baahan yihiin dad badan oo dhibsaday ayaa jira waxyaabaha social media ka socda waanu dhibsanay cadaalad baan u baahanaa meesha cadaalad yaan u baahanaa waanu dhibsanay social media waxa ka socda waxa social media ka socda wax loo dul qaadan kara maaha alla ka fogaansho weeye reero dhan oo guri gabar yar oo ilmaheedu wata ya social media la soo dhigay annagu cadaalad baan u baahanaa halkaa walaalayaal annagu cadaalad baan u baahanaa social media annaga waxba nagama galin annagu cadaalad baan u baahanaa dad badan oo hawiye iyo daarood kamida oo halkan ku dulman cadaalad baan u baahanaa dad badan oo hawiye daarood kamida baa cadaalad u baahan halkan ma jirto waxa maanta social media wax la fiirin kara maaha waay war maxaa haddii aniga adigaan isqabsanay maxaa xaaska maxaa ninkayga kuu geyni karaa ilmahayga maxaa kuu geyn karaa waa qalad waxa ilmahayga kuu geyn kara waa qalad aniga adigaa isqabsanay nad inaad ilmahayga gadaashada fiirsid aniga ifays garee laakiin meeshaan waxa weeye walaalayaal dembiga yaalla waxaan rabnaa sidee baa dembigaana ku dhacay sidee dembigaana ku bilowday hawiyaw daaroodow sidee ku bilowday xaggee ka bilowday xaggee horta mijo dhooqo midba mar baa la saaraa mijo dhooqo midba mar baa la saaraa waa in la helaa sidee buu ku bilowmay dagaalkani wuxuu ku bilowday Sharmaan Boy iyo Daahir Calasow Sharmaan Boy iyo Daahir Calasow waa laba nin beere waa niman raga waa wayahay alla wuu yar yahay wiilku yahay awowgiis xirsi faarax wiilkaas leeyahay uu ka soo jeedaa ayaa wiil intuu dilaalay xirsi maxaad wiilka u dish markaas wuxuu yiri wuxuu ma baray waxsan muxuu la baran waay marka wiilku way soo gaareen labada nin waxay dhahan hada waxay ku dhahan naagtu xunta shar garayn man warwaligin bahay shar garaynina yaa shar garayntina dani hela kale anigu meesha waxa uga hadlayaa justice annaga hawiye badan iyo daarood badan ayaa dhibaatadan soo gaartay maanta social media ku jirta maxaan anigu ku sababsanay annaga sabab maxaa u yeelanay maxaa waxa social media ka socda maxaa noo keenay maxaa annagu haddaan daaroodnahay haddaan hawiyanahay ma dembi baan ku leenahay in social media nala ka caayo dembi miyaan ku leenahay social media in nala ka caayo hawiye iyo daarood dad badan baa waan dhibsanay dhagaha alla idinka qabay waanu dhibsanay laakiin waxaa halkaa iga baxday Daahir Calasow in laga haysto filo Soomaaliya Daahir Calasow in roob la wato oo filo Soomaaliya laga haysto maxaad ku tiraadeen walaalayaal waxa la gaalka dil baa la gartiisanaasi haddaan Daahir Calasow filo Soomaaliya aysan hadlayn oo roob la uusan ka goos haysan wiilka kan xilligii maxaa la yiraahdaa ma dhalan ninka la yiraahdo boqor Kanadiid history wuxuu ka yaqaan ma jirto anigaana qono Aasiya oo gabka oo ku dhahay Yusuf Kanadiid dhahay maxaa waxaan la Ismaan Kanadiid Yusuf Kanadiid weeye baa la yiri adigu weelal badan buu dhala waxaa la yiri bal fiiriya walaalayaal fiiriya annagu calooshaana horeysa waxa jooga gabdho badan hawiya oo ilmo daarood leh oo maxaa la nimankooda daarood yihiin waxaa jira gabdho badan oo daarooda oo ilmahooda hawiye yihiin oo maxaa la yiraahdaa nimankooda daarood yihiin maxaa ay hawiye yihiin waay maxay ku jisaysteen jaa'ifadan gabdhaha maxay ku jisaysteen jaa'ifo waa jaa'ifo wayna xanuujisay daarood hawiye sheekadani maxaa waay youtube-ka yaa keena sheekadan waxa la mijo dhooqo midba mar baa la saaraa horta aan kala saarnay Daahir Calasow
markuu wiilka la dagaalayay yaa intaa heeska ma lagu alifay miraha ma lagu sameeyey may waxaani waa wax soo socday waa wax la damacsanaa waa wax jira waay laakiin waay in annaga la isku kaayidira miyaa may waa in annaga nala ku jeediyaa waa in nala ka jeediyaa waxa soomaaliya ka jira soomaaliya waxa ka socda in annaga nala ka jeediyo bal hadda fiiri daahir calasow markuu dadka u tanaagonayo oo annaga nacaynayo ayagaa laga kari laayaa galmudug iyo hirshabeelle yaa laga kari laayaa guddiga doorashada wax ka bedela oo la fadhiya taasaa waxay kuu sheegaysaa in daahir calasow laga hagaayay asag gebigiisaba laga hagaayay fiilla soomaaliya nimanka fiilla soomaaliya fadhiya in ay daahir calasow gebigiisaba halkaa laga hagaayay bal fiiri galmudug iyo hirshabeelle iyo maxaa la yidhahdaa maxaa la dhahay south west oo iyagu ay iska xukumaan bal ka warrama walaalayaal ka warrama yaa laga kari laayahay guddiga doorashada wax ka bedela waxaa laga kari laayahay guddiga doorashada wax ka bedela waa la fadhiyaa fiilla soomaaliya haddaan daahir calasow laga haysanin waxaanu rabnaa justice dadka hawiye iyo daarooda ay dhibtay ereyga social mediaha lala fadhiyo waxaan ka rabnaa justice ayaan ka rabnaa daahir calasow sheekadan asagaa bilaabay wuxuu ku bilaabay maxaa la yidhahdaa sharmaan boy yaa heeska u dhiibay yaa soo tiriyey ma intaa u dhaxaysaa heeska la tiriyey mase waa wax la abaabulahayo socday ila heesku waa miro laysku kakabayo la tirinaye tell me sidee wax u socdaan ii sheega waxa jira yaa heeska tiriyey yaa laxanka saaray yaa muusiga saaray waay daahir calasow waay uu wiilka yarkaa keliya u ataagay waay daahir calasow waay sheekada u weyneeya daahir hawiya daaraad uga dhigay waay u majeerteen u haystay waay u ogaadeen iyo ugu diraayo dhulbahante waay haddaan daahir calasow laga haysan fiilla soomaaliya haddaan laga maamulin fiilla soomaaliya taalime walaalayaal ii sheega waa idin baryayaa idinke caqligiina fiiriya waay wiilkaa yarka anigaan aqoon boqorka kanadiid iyo siday u kala wenyihiin iyo siday u kala haystani weligay historygooda ma akriyo haddana diyaaru maahayn akriyo taalme wiilkan waa wiil yar ma akrin ma yaqaan siduu ku ogaaday war heeskaani xagguu ka yimid ma annaga caqligeena lagu ciyaarayaa war maxaa la isugu kaayadiraya war maxaa hawiye loo gaaray war maxaa daarad loo caynaya war waay war gabadha islaameed oo ilmaheeda wadata oo iskuulka u wadata war maxaa jidka kaabada looga qaadaya war maxay jidka u mari laada war maxay gurigeeda uga soo bixi laada justice baan rabnaa annagu justice baan rabnaa waa dhibanahay ilaahay ha noo soo saaro wax naga qabta dadkiina dhibay ilaahay ha noo soo saaro ilaahay subxaanahu watacaala hanoo keeno rag ilaahay ha noo keeno naga qabta dadka social media ha nagu jaa-ifeeyey oo nagu caayay oo isku kaayadiray ilaahay subxaanahu watacaala rag noo soo istaaga iyo dumar ilaahay ha noo keeno oo taaymo haya maxay gabadha ku kasbatay ilmaheeda iskuulka u wadatay in gabar inta ka daba tagto ay maxaa camera la daba istaagto asagu ma wuusa ka fakerin ilmihiisa iyo gurigiisa markuu qabaa'ilo afka isu gelinaya asagu qabaa'ilo bal sheekadu sharmaan boy bay taagneed sharmaan boy baacay tamay wuu caayay hawiyo caay sharmaan boy sheekadeedii maan ku ekaano sheekadeedii falanqayno muxuu caydu ku timid waryaa ninka cayda sameeyey war xagguu cayda ka keenay aawa kii la alifay aawa kii laxanka la saaray soo inaan investigation ku samayno because daahir calasow ma rabin waxaasoo dhan in la sameeyo daahir calasow fiilla soomaaliya laga haystaa roobla daahir calasow haysta waxaa kuu sheegaysaa in waxaani ay jiifaan waxaan maalin keliya lagu samayn karo oo la bedeli karo xildhibaanadii
gacanta lagu haystay yaa maanta oo dhan farmaajo haystaayo ku haya kana bedeli ka waran ha walaalayaal maxamed ka ogti xildhibaanada saddexda dowlad goboleed oo kale mar hore la sameeyey laakiin yaa haysta oo raba inaan waxba laga bedelin ina farmaajo markuu leeyahay aniga yaan la weydiin abriyaan la iimaan aniga yaan la dhihin adaa dhilay ku sameeyey because wuxuu ogaa inuu dhilay ku sameynayo he knew dhilayga meeshu ka imaanayo he knew hadda fiir saddexdaa dowlad goboleed xildhibaanadoodii oo hore ay u sameeyeen oo qurun uga soo buuxiyeen qurun yaa laga laayaa ka bixiya one day baa la samayn karaa one day yaa la samayn karaa laakiin yaa dhilayga samaynaya yaa dabada ka haysta Rooble iyo farmaajo daahir calasow waxa uu ili ka haystaa fila Soomaali hadduusan daahir calasow fila Soomaali uusan ili ka haysan hadduusan ka haysan investigation ayuu ku samayn lahaa reerkiisa la caayay wuxuu dhihi lahaa aniga awooga dabada looma qaadan awooga kursiga nin ogama kici jirin boqor maxaa la yiraahdaa magaciisa waa la yaqaanaa wuxuu yahay yaa xoog kuma imaan magarat maxaa la hubyo xoog kuma imaan meeshuu ka hadli lahaa wuxuu faraha gashaday ma jeerteen markaasuu sii socdo wuxuu sii faraha gashaday ogaadeen waxaase ku sameeyeen yaa kuu dirsaday micid baa kuu dirsatay waxbaaba hadda faraha lagula jiree sidii adiga wiilkii laydinku kala badbaadin lahaa faraha lagula jiree maxaa kuu geeyay ma jeerteen saasay ku sameeyeen ogaad fiiri daamiinis waxa weeye ma jeerteen ku dira ogaadeen dhulbahante ha kow sheekadu ka weyne harararaf baa inta lala soo yiri baa meel walba ku daaro difaac kama ahee sheekadu waa qalloocin bay ka tahay kuwa daaroodka difaacayana kama ahee shalayba ma difaaci jirin ma shalay bay difaaci jireen daarood waa may ee waxay ka tahay qalloocin sheekada waa waray in laga dhigo oo la qalloociyo walaalayaal wixii hawiyaa oo walaalahaya wixii maxaa la yiraahdaa yaqaana oo daarooda sheekadan ha qaboojiyaan dadkana yuro dhaha war naga tagaalo sheekadii walaalayaal tan iyo maalintii lagu kala tagay teendada wali saddexdaas gobol yaa wali lagula jiraa waxaa la diidayaa inaan wax ogaano saddexdaas dowlad goboleed baa waxaa laga laayaa guddigii ka bixiya guddigii oo guddi nadiifa keena markaasuu dabada haystaa markaasaa roob loo rabin isaguna waqtigu inuu dhammaado jiido maxaa la yidhahdaa yuus garaynhayaayo hadduu magaciisa lug meel la gelayaa oo iska dhigayaa inuu fiican yahayo waxaan aadahayaa jawhar yaa raacay jawhar aduu aaday beesha caalamka ma raacin soo disaster kama dhicin soo lama reebin beesha caalamka in raacdo hal qofoo beesha caalamka ma raacin waa ii dhahay ogeysiis ha waa ninkii aad arkaysa inta lagu duulay nimanka yaa haararaf inta yiri aaday maya laguma duulin 2 sano ku darsada inta baarlamaanka keenay aqalka soo intuu tuuta qaatay biyo wuxuu aaday maxaa la yiraahdaa furinta fiiri hadalka soo jabinayo ay wax iska dhigaa ni fiican ya roob la iska dhigaa fiiri walaalayaal roob la wuxuu iska dhigaa walaalayaal ni fiican fiiriya markaas hadda jawhar muxuu ka aaday waxba maaha wuxuu rabaa waxaana inay sii socdaan waxaana inaysan maxaa Soomaaliya inaan dawlad xal ah dawlad wanaagsan oo xor iyo xalaal loo sameyn fiiri jadaf jawhar baada disaster baa ka dhacay hal beesha caalamka ma raacin qof walaalayaal annagu meeshaan cadaalad baan uga baahanaa cadaaladdu waxay tahay yaa u soo dhiibay heeska Sharmaan boy waa wiilka yarka ma dhalan boqortooyo markay Soomaaliya ka jirtay hooyadii aabihii baan dhalan iyo kacab baan dhalan yaa waxaan u soo tiriyay waxaan rabnaa inaan helno investigationka daahir calasow haddaba wuxuu ka dambeeyaa fiila Soomaali roob laa wata inuu wax jiido wataa inuusan waxba furfurin buu wataa
daahir calasow waa siyaasad wiilkii markuu qabsaday oo herka ka yeersiyey iyo ninkii saaxiibkiisa ahaa oo kaya fadhiyey oo u hayay baaswarka waryaama ninka hawiye caynaya bad baaswarka u haynaysaa naa iisoo dhiib haddii kale adigaan hawiye kugu dirayaa hawiye adaan kugu dirayaa hadda baaswarkiisa isii ha bal fiiriya meesha sheekadu taagan tahay sheekadu meesha ay taagan tahay fiiriya wiilkii markii sheekada saa loo geliyey ilaan wiilka markii horeba farmaajo kooxdiisa keensaday waxay rabeen inay dhahaan aabow noo dheh waa u dhahay weliba hees wuu u qaaday waxaanu sameeyey ciidamadu dhisay heeska ku ammaanayo waxaanu dhan sheekadu waxa weeye jiid anaan ku jiide waa wax la jiidayo soo soco maanta dhan waddanka soomaaliya siyaasaddeeda waxaa la rabaa in la jiido maxaa loo jiidayaa axadkaas roobla dartiis ko markii la hubsaday wiilkii 67 lagu hubsaday wiilkii oo wiilkii uu isaga cararay maxaa la dhulkii isaga cararayo aaday maxaa la yiraahdaa hadii la ku reeyo Puntland iyo ninkii hawiye oo Puntland qori iyo arkay wariyaa ninka qoriga aniga ii soo qaatay ninka caynaya ninka hawiye caayay haddaadan isinin baaswarkiisa haddaadan isin waxaan kugu sameeyay ogow hawiyaan kugu dirayaa wax aad samaysid iyo waxaad aliftid iyo YouTube-kaagana cid fiirsanaysa ma jira waan la xirayaa wiilka saaxiibka uu leeyahay oo baaswarka u hayo oo kaya fadhiya wiilku tareed buu ku sameeyay daahir calasow okay daahir calasow tareedku ku sameeyay wiilkii waa kaas biir wuxuu yiri waxaan tusayaa daarood oo waxaan tusayaa in aan ka soo dhaxalli karo ballan buu ka qaaday in aan ka soo dhaxalli karo YouTube-kiisa baan tusi karaa oo wiilku waxba uusan la jooginin waxna aysan ayagu u qaban karinin naawsi ninka daarood ahay la kama xiraye waa ku bajinayaa bal fiir wiilkii waa sii waa saga dhahay wariyaa waa kan waxaan ka soo dhaxalayaa YouTube-kaaga laakiin wuxuu doonaa ha sameeyay wiilka kala tirada ku sameeyaa ha yiraahdo daarood baa la caayay iyo hawiya la caayay yaana adduunka ha isla kiciye anagu justice shacbana Soomaaliyeed soo ma baahnin hawiya iyo daarood wixii loo geystay oo ay ahaa soo ogama baahni justice ha soo in anagu oo cadaalad uma baahnin aawa ragga Soomaaliyeed marka oo qolo walba leh ragga Soomaaliyeed aawa oo qolo walba leh waa ayaga gabar daahir calasow oo haystay jugta ku soo wada qoranayee doqomo inay yihiin oo aysan aqli lahayn waa ayaga aqli daahir calasow u noqdee may dhahaan daahir calasow you right waa noo hilisa dhaqaalaadna siisa walaalka yaa tahay laakiin walaalo waxa aad Soomaaliya hadda ku sameynaysid oo aad kala qiiminaysid waa ku qaldanta ninka hawiyaha anigoo ku raacsan dadka yaga ninka wax tara yaan haddana waxaa leeyahay walaalo waa wanaagsan tahay waa nacaawisa nin wanaagsan baad laakiin walaalo macaana maanta waxaad sameynaysaa wax loo adkaysan kara maaha dadkii ayaa waxaan maanta jirin yacni maanta dadkii dhibaato kale hadda ku wadaan dhibaato kale haddaan mid kale lugaha kala baxaynaa mid kale haddana nagelis mid kale yaa nagelis ragga hawiye oo ku soo qoranaya halka jugta nicimo joker jugta ku soo qoranaya warnaag waa loo saxalaanay xaraan waana loo sameeyay ragga la fuulayo ka hadlo ragga naagaha noqday ka hadla naag ilaahay baa u sameeyay xaraan xalaal dambigeedana ilaahay baa ku leh meel laga togta ilaahay baa siiyay meel laga togto laakiin idinka meel laga togto ma leediin waana ladin togtay ragooda annagu justice baan u baahnaa hawiyaha iyo daaroodka social media ku jira waadna dhibteen youtuberada leh waadna xanuujiseen justice baan u baahnaa halkaa ninbaa halkaa wuxuu la soo istaagay gabdhaha nimanka daarooda gabdhaha hawiye qaba ha furaan bal dhibaatada ugu weyn fiiri meela gashay oo maxay furahayaan oo maxay haddii maanta ilaahay qadari lahaa hadduu qadari lahaa oo dhigaa naaguhuna 4 bay guursan karaan 4 hadda soo mid daarooda ma qaba 3 hawiyaan ku soo dirin lahaa 3 hawiye
والله هدي ما أنت اللي يديه لها محل إلى دمرك مشايخ تشاب كي مرة قارك خلاص صباحا وقت واحد ولا بنية دهان حتى ما أنت دهان ولا بنية دمر كل أفر بيجورسن كران هذا صدار هذا ما قبه ها سدح وياك صدر لها سدح بنكو صدر لها because إذا بدرها عندي ديه ها نوان كدارات هفران قبلها هوي ما لا أقولي ما بكون يغاني ما كان قرصدين ما هذا السجوري ورنقن حمضان ورنامج كان لوجستي أنا داير على سو وحن كرمنا ياه داير على سو مو حظ ما إنسان داير على سو إن هوي كل أحب كل يوم حسمينيو ورسي بي بعك جيسي محيرمان إنه وحسي صعدا دا كينا مرا سي بي أي فيور كسينيسا ها وحيرمان إلا يرى الله وارنتيس قبطة عليا الله وارن دار هوية العاي ها وحشي كذا سيوينين يا واسي بي ها ولا ليال وحش ما واحد داد واحد جرى هوية أنديق السرنبا واحد داير على سو سمينيو عيلك يا حناقك كدمركم مجارة الدمر هوية ويكحنا غسين واحد وكسمي ويلكيركا وبين dadka support gareynaya oo fiirsanaya heede waa CBB maxay fiirsanayaan in laga dhigo hawiye daarad sheekada inay noqotay hawiye iyo daarad sheekadii inay noqotay laakiin waa lagu fahmay sheekada hawiye daarad maaha waa daahir cala soo youtuberada daahir cala soo iyo youtuberada sheekadu youtuberada dhex taala walaalayaal ma ahan hawiye daarad لكن وحن كعد سنيا قلمدو يهر شمال ماشي إنا كعان وحن نباتها هايسته إنا فرماتي يان لفيرين ويل كان هوستا تدك كدر دريا بيش عالمكو اي تريدك كوسما يسيلا لي الروبلا او تريدك لقوسما يلي ورياه دويد ورياه هدادا سمين ذاك مسير اللي هايو او دادك هوستا كدر سنيا او وقتك هوستا كو ديري سنيا ولا ليال ما مغليسان sheekadu kama foga siyaasad kama foga ninka waa nin la dirsaday ninka la yiraahdo daahir cala sow kama maqna fila Soomaali kama maqna yaan dahawiye loo caay yaan beesha hawiye weyn sharafta leh loo caayin daaroodo ninkaasi kama maqna ninkaasi filosof ninkaasi nin halkaas u dhimanaya buu ku dhex jiraa kama maqna walaalayaal ayaan iscaay waxa Soomaalidu ku mahmaada la faan la tuuri doon feenka lagama laysto la faan la tuuri doon feenka lagama laysto isma tuuri doontaan waad suudantihiin yaa maxaa la yiraahdaa joojiya waxaad sameynaysaa ina farmaajo wiilka kula dagaalayay iyo haramcadkii uu kula dagaalayay muqdisho u joogaa asagoo waliba gaashaandhigii u magacaabahaya dad yaaba isgaaray ha asagoo gaashaandhigii wali magacaabaya oo sameynaya marka meesha lagu soo jeedo dadkan sharmaanbo iyo waa inaanu siyaasadii aanu ka tagin siyaasadii dib inaan ugu noqonaa waa inaan dib ugu noqonaa ha ka taginina siyaasadii iyo meeshay marayso ha markaad aragtaan dhagayso markaad aragtaan sheekada iyo meel kale sii jafaysa waxaad tirahdaan annaga nama khusaysa waxa qabaa'ilka daarood sharaf bay naga mudan yihiin qabaa'ilka haweena sharaf bay naga mudan yihiin waxaas waa idinka youtuberraad tihiin tuugo baad tihiin maxay ku dhacday markii hadda laga kacay teendadii inta la fadhiyaa sheekadan la wado teendadii inta la fadhiyay yaa sheekada la wado da hees buu qaaday sheekadu waa soo socotay waxaa la ogaa electionkan iyo waxaan iyo sida ku dhacay tareedka lagu sameeyay ninka la yiraahdo rooble beesha caalamku ay tirwariyaa meel uma baxsid xataa ma imaanaysid banaanka aad baasaboorka aad ku leedahay xataa Sweden ma imaanaysid
ilmahaagana waa laga soo saaraya tareed baa lagu sameeyey waryaa adaan ku siinay awoode maxaa la yidhahdaa doorasho samee marka ninkaani muxuu samaynayaa waa inuu wax xirxiraa furfuraa xagga taabtaa hebel yuuskare xagga samee kanow samee fidma cindi geel waa fila soomaali mar horena waa idin sheeg ninkaa ina farmaajo oo aan godka jilaco la gelin xalaal maaha dhulku xalaal maaha ina farmaajo godka jilaco la gelin dhammaantii waa salaamantii walaalahayga soomaaliya meeshaa joogtaanba thank you very much